hooyo Aamino Cali Isxaaq waa hooyo da' ah oo ku nool degmada Buur-Xakaba ee gobolka Bay, waxaana dhibaato ay ka soo gaareen fatahaadihii uu sameeyey roobabkii lixaadka lahaa ee ka da'ay dalka, balse waxa ay u dulqaadan weyday nolosha adag ee soo wajahday, maadaama ay ahayd qof danyar ah oo aan ku filnayn nolol maalmeedkeeda. Hooyo Aamino hadda waxay la nooshahay qoys deriskeeda ah, maadaama aan ifka u joogin caruur ay dhashay, balse ay jiraan kuwo ay iyada soo korisay oo markii dambe ay iswaayeen. Waxaan ku booqday hoyga ay ka degan tahay Buur-Xakaba salaan iyo ismarxabeyn kadib, waxa ayna dhex martay sheekadan. ilaahay ma hadde lan in koyn lahayn ideeray geedaha qabsay lilay ya ilaahay dawliya ka furu rahiinka ya ilaahay ma hadde inka kaalmay maaragtay berko gotay madaas ka baadi biyoogi oo moodin biyoogi ya ilaahay ma hadde sidii oo ku moodin rafaadka samudidi kasi ehel maqobo ashiir maqobo walaal maqobo weel maqobo maaragtay afarta berjahid ka faruurinti tabaran ka dhisida umale gaariga oo tabaran ka gadada umale irsaagde islaamku mata rasuulku madii maaragtay sidoo gooti Muhammad yarooba lama boqol ha isiya ilaahay ma hadda idasheen dhidi aniba juu ihay ani ku nooladi alhamdulillah alshukru lillah islaamku mata rasuulku dawladda intii oo ilaahay ma hadda madaxweyne oo dhatiyo dhibaatadaasan haysata una dhibooni maaragtay anika jir weelaawi aha habad maqobo haleen maqobo hunguru ee maqobo tumun iyo nesadgeed iyo maaragtay iyo minkay ka taaranta lan ani dhis an aro atgeega indhisaan ilahay. Hooyo Aamino oo nolosheeda ay aad u adag tahay ayaa waxa ay bulshada Soomaaliyeed u dirtay fariintan. ummadu muslimiinka meel kasta roogan may ka codsadee ini dehirtay li in dhiso boholong li in suubiyo ilaahay ma hadda nolol fiican ani hal ummadu muslimiinka meedas jirta dadka hangma inohoyaan may ka codsadee ka bariyee ani anageega fidhow ana fidhi la okay. daawadayaal saaka waxaan soo booqanay hooyo Aamino Cali Isxaaq oo kamid ah hooyooyinkii ku waxyeeloobay fatahaadihii roobabkii lixaadka lahaa ee deerta saameeyay degmada Buur-Xakaba. sidaad arkaysaan maamadu waxay noogu warantay inaysan wax caruur ah ifku joogin oo ay dhibaatooyin fara badan ay ku jirto. sidaad arkaysaan dharkeeda wuxuu yaalaa dhulkan, sidaad arkaysaan waxay fadhidaa guri burburay oo dhibaatooyin fara badan ee roobabka ay u geysteen. waxaa kasii daranba in ay weydo cunadii ay cuna lahayd, marka sidaa daraadeed bulshada Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta dowladda iyo sidoo kale hay-adaha ku shaqo leh arrimaha samafalka ayaa waxay ka codsatay inay ka qayb qaataan in maamadan loo gurmad degdeg ah loo sameeyo. Xuseen Cali Geesay, 5 Somali TV, Buur-Xakaba.